shaqo raadinta ayada ayaa shaqo maxaa yeelay in aad shaqo heshid waxaa ka horeyso inaad leedahay ama haysatid CV ama cover letter aad u qurux badan taasoo saamaxayo inaad noqotid qofka ugu horeeya ama dadka loogu yeero interview ama wareysi markii ay shaqo codsadaan waxaa yeelay dad badan ayaa waxay haystaan CV ama cover letter aan update ahayn aanan khuseynin shaqada ay raadsanayaan waxaan kula wadaagi doonaa software ama AI ka caawin karo qaabka ugu wanaagsan ee ku qori karto CV iyo cover letter taasoo ku saamaxaya even inaad noqoto dadka ugu horeeya loo yeero markay noqoto wareysiga shaqo raadinta ama shaqada aad codsato haddii aad janaalkeena ku cusubtaa fadlan follow ina soo dhahay sidoo kale subscribe garay furana gambalaalka si aad u heshid video walba ee ku saabsan barnaamijyada kala duwan ee aan soo wajeedino halkan aad ma santiin ku soo dhawaada markaan rabo insha Allah waxaan soo geli doonaa marka koowaad ChatGPT ay soo geli doonaa ChatGPT waa AI kaasoo wax badan oo shaqooyin badan fududeeyay wax badan horumariyay haddii walba inuu shaqada ka qaato sidoo kale at the same time shaqadooda ayuu ku horumarin karaa kuna wanaajin karaa sida shaqo raadinta tan oo kale ina la daawo marka waxaan soo geleynaa ChatGPT aan soo geleynaa this is the ChatGPT we have and waxaa yiraahdaa markaan haysano ChatGPT haysano waxaan rabnaa ku door inaan u dirno shaqooyinka banaan ayaan fiirinaynaa marka waxaan imaanaynaa website-kan waa qof walba waa yaqaan oo shaqo raadin oo yaqaan xirfadaha shaqadiisa Somali jobs ayaa yiraahdaa website-kan waxaa la soo geliyaa shaqooyin kala duwan ayaa la soo geliyaa daily base aan maalin walba ayaa la soo geliyaa qaybta jobs ayaa imaanaynaa jobs markaan imaano waxaan rabaa inaan hal shaqo kamid aan tusaale ahaan aan u fiirino waxaan raadinaa la say shaqo oo waxa la finance officer la say maxay shaqo waxa waa business soo baratay business related to finance soo shaqadan ayaad rabtaa inaad cusubtid soo marka CV-gaada waxa dhan meeshan ka habeen doonaa finance ayaan ku dhufanaa finance markaan ku dhufto waxa inoo muhiima job description ayaa inoo muhiima here job description ayaa inoo muhiima okay waxa kale markaan aan soo qaadan doonaa kood hore prompt waxa waaye ChatGPT mar walba sida wax u weydiiso ay wax ku siinaa soo marka qaab wanaagsan daasisid qaab wanaagsan wax ku siinaa hadaa qashin ku tuurto qashin ku soo tuuraa so make sure how your prompt sida wax u weydiisid iyo waxyaabahaadi ma si fiican u dhadhicisid ayuu waxa waaye si u dhow ay ku keeni doonaa marka prompt-kan ayaan isticmaali doonaa inaan la soco waxaan leeyahay prompt ayaan isticmaali doonaa this is the prompt-kan waxaan leeyahay you are expert of crafting ATC optimize ESOP resume letter ESOP iyo cover letter maxaa yiraahdaa waxaan ku siin doonaa xogihii dhan meesha ku siin doonaa marka waxaan dhahay keyword-ka waa in ay identify jiris area skills-ka loo baahnaan karo content waxyaabaha dhan soo marka waxaan siinaa marka job description-kii shaqadiisa ayaan siinaa sidoo kale waxaan siinaa CV-geeda qayb kamid ah CV ma aan qoran laakiin waxaan qortay magaceega lambarkeeda contactigeeda experience education level-keega waxaas dhan ayaan qortay la say tusaalaha this is waxa yiraahdaa waxa waaye waa summary of my CV aan rabo magaceega education level-kaada work history meelaha ka soo shaqeysay waqtiyada aad soo shaqeysay administration waxa yiraahdaa other professional certificate shahadooyin kale aad haysatid maxaa yiraahdaa waxyaabahaas ayaa ku siinaa sidoo kale waxaa ku darsanaysaa hobbies iyo waxyaabaha aad jeceshahay because mararka qaar waxaa qofka laga fiirsaa waxyaabaha uu jecel yahay iyo dhaqamadiisa iyo reference-yaada so marka this is the draft aan soo qaatay as a CV aan soo qaatay so marka waxaan subinaa intaan ayaan soo qaadanaa CV ayaan soo qaadanaa kood hore waxaan leeyahay this is my draft CV way oo magacay xogihii bis ku soo qoraa waxaan keensanaa qaybtan ChatGPT sidoo kale waxa kale ku daraa markaan sidoo kale waxaan ku daraa leeyahay job description-kii aan u baahnaa sorry job description-kii waa kana soo qoladan way soo intaan soo ku biyeysana dhac soo siiso ilaa maxay yiraahdaa waxa imaataa adiga responsibilities ka muhiim ma ahan waxa yiraahdaa ilaa job hadda darabta job responsibility waa ku dari kartaa laakiin say it's good in up to job description-kii aan soo qaato sidoo kale waxaan ku dari doonaa qaybaha dambe waxaan ku dari doonaa skills-ka iyo waxyaabaha la iskaga baahnaan karo here skills-ka la iskaga baahnaan karo ku daraa okay this is the job description-keega qaybaha dhan waxa yiraahdaa waa okay waxaa kaloo ku daraa qaybtan waxaa yiraahdaa oo waxaa yiraahdaa skills qualification because of mar walba waxay fiirinayaan skills-ka ay u baahan yihiin skills-ka in isleeyahay marka skills-ka u baahan yihiin ayaa la isku maagireynaa mid macquul oo waxay noqonaysaa marka qof competence oo shaqada u qalma ayaa ka dhigaysa marka kana soo qaadanaa
so waxaa leeyahay ilaa this is the skills ka u baahan yihiin. This is the skills and qualification. So okay, inta marka waa system waxaan siiyay kooda hore maxaa yiraahdaa prompt waxaan ii qabo oo waxay u qabanayaan waa kuwan meesha ku qoran tahay. Sidoo kale waxaan siiyay maxaa yiraahdaa CV oo draft waxaan qabtay maxaa yiraahdaa education level skills kan leeyahay professionalism reference kulli ay meesha geliyay. Waxaa kaloo aan siiyay job description ki shaqada la soo boosto jiray ayaan macnaha meesha aan soo geliyay. Waxaa kaloo aan soo geliyay skills iyo requirement qualification ka loo baahnaan karo soo kale meesha aan soo geliyay. So inta markaan soo geliyay marka wuxuu ii diyaarinaa marka waxaa leeyahay waxaa ii qortaa CV iyo cover letter. CV waa isla naqaanaa wuxuu macnaha documenti ka faaloonaya ama ka hadlayo background kaada education level ka experience kaada waxyaas. Cover letter kan waxa waa yiraahdana sidoo kale waxa loo isticmaalaa ayadana why shaqada u codsanaysaa, what motivates you, haddii shaqadan lagu siiyo maxaa qaban kartaa, skills iyo xirfada u leedahay maxay shaqadan ka joogdaa oo waxyaabaha ayadana cover letter lagu qoro. Everything markaas ay inoo qori doono marka inaan fiiri waxa leeyahay marka okay waxaan ku dhahay marka based on the xogta lagu siiyo information ka aan ku siiyay adoo dabaqaysid waxa ay qortaa cover letter iyo CV oo ku wanaagsan kuna habboon shaqadan hadda codsanayo. But let's see what it's going to do. Enter ayaa leeyahay. So automatically uu qaatay marka waana la jareynaa marka si hadda arkaysaan. Okay wuxuu ku dhahay marka wuxuu dhahay please upload your current resume and description ka. So marka wuxuu dhahay waxa ay siisaa maxaa yiraahdaa resume ka iyo macna iyo job description ka kala qaad. This will allow me to refine inaan suubiyo. So marka hadda right now awal waxaan suubiyo isla wada jeli Soomaa laakiin hadda wuxuu dhahay waxa ay kala qaadaa job description ki iyo waxa siinaysa iyo waxa yiraahdaa iyo CV gaada kadibna waan ku diyaarnaa. Okay no problem ayadana waan sii karaa waxa leeyahay. So intaas markaan ku darsado kadib waan u diraa marka let's see what it's going to do wuxuu subin doona. Okay waa kala diyaarnaa marka. Remember I'm using ChatGPT ayaan isticmaalayaa. ChatGPT laba qayb waaye midna waa free midna waa pro. midka pro ay isticmaalaa free still oo ku subi kartaa sidoo kale same what I have done now waxaan subinayo waxa waaye waxa ku subi kartaa sidoo kale DeepSeek so another AI which is free but right now I'm facing waxaan dareemayaa in culays badan ka jiro isticmaalkiisa aad u batay marka waxyaabo badan uu ku keenayo marka qaar jaam ayaa ka dareemaysa marka this is what I'm preferring now kan ayaa isticmaalaya. Let's see what the result is. Okay this is the CV oo inoo qoray wuxuu dhahay magaciisa waa kana professional summary marka meelaha qaar lugatiya here keywords ka waxa waaye oo system because of inta badan hay'adaha oo NGO-yada shaqooyinka ma fiiriya human being ma fiiriya qof shaqaalaha ma fiiriya systemka ay akhristo marka wuxuu fiirinaa keywords ka experience waxyaabahaas ayuu fiirinaa kadib asaa kala shandeyna because of waxa la yaabaa intaas oo kun qof shaqo soo cusubta shaqada qof bilaadan ma fiiriyo marka waxay subinayaan systemkooda ay wax ku base gareysanayaan keywords ka waxyaabaha aad iskaga baahan u fiirina kadib CV macquulka goona ayaa u dhiganaa kuwaas ay noqon doonaan ku interview loo yeeranaa marka this are the keywords ka mar walba ku daraan also prompt ka aan qoraay waa raacsi waxaan dhahay waxa ay qortaa keywords ka that is much related to the CV iyo shaqadeeda. So 6 years financial management maxaa yiraahdaa NGO waxaas dhan ayuu qoray. This is the educational level ka uu kala shandeeyay and education level ka kana and skills ka loo baahnaan kara marka skills ka loo baahnaan karo iyo skills ka isku daray waxaan dhahay marka skills kan ayaan leeyahay meesha ku soo cad meeshan. Okay professional experience marka shaqooyinkaada iyo waxyaabaha qabatay waa kuwaana marka finance ka waqtiga soo shaqeyso roles ka soo ciyaartay hatta roles ka hadda aan qorin wani waxaan siiyay shaqadaas ayaan soo qabtay waqtigaas ilaa waqtigaas role ka asaa ii qoray assistant waa kuwaasa. Okay this is the technical soft skills ka la iska baahnaan kara luqadaha aan aqaano English Somali Kiswahili maxaa yiraahdaa professional aviation ka waxyaabaha aan kamid ahay meelaha kamid ahay hobbies ka waxyaabaha caadooyinkayga. This is the CV kamil aad qurux badan updated shaqada aad codsanaysid xiriir la leh. Okay cover letter ka balan fiirno cover letter ka kana sidoo kale magaceega mar walba waxa waaye inaad qorto waxa leeyahay magaca hay'adda organization ka location ka mararka qaar dadka aad u isticmaalay maxay yaraahdo u isticmaalay ChatGPT aan aqoon badan lahayn waxa dhici karta mararka qaar wax walba copy and paste leen even meeshii waxa lagu qor lahay ma arkayaan. So marka I know so many jobs are codsanaysa but every shaqo walba ama ChatGPT ku siiyo so proofreading so bi kadibna wixii u baahan tahay ku darso wixii kalena iska reeb.
okay waxaa yiraahdaa waa kana subject uu ii sheegay hire name kiisa ku diraysa this is the cover letter ka why am I applying so this is the final keyword is aad u xoog u saarayo my key strengths waxyaabaha ku fiicanahay haddii shaqadan la siiyo kala maxaa noqon doonaa waxyaabahaas dhan so this is the CV ama cover letter kii oo way shaqadan u codsanaysaa iyo way maxaa ku doorbidanayna dadka lagu doorbidanayna this is the cover letter ka qeexay I think in asla fahnay inta marka ku diyaarsiin easily mid walba copy and paste aad leedahay shaqada aad ku codsanaysaa then waxa yiraahdaa you can go and apply so many jobs so marka haddii aad shaqalaan tahay na ogtahay xirfadan ama skills kan qorista macaya CV ee adag yahay this is the video will help you tan waa shaqada ama CV ka caawin doono inaad wax badan aad ka faa'iideysatid markay noqoto shaqo raadinta because I know haddii website aan soo galno waxa arkaysaa so many jobs ayaa la soo gelinaya mid walba waxa waa inaad waqti ku qortid waxa waa way adkaanaysaa back of the days maalmihii aan shaqo raadinta ku jirnay haddii waxyaabahan aan helayn wax badan aan codsan lahayn like good luck now waxa waa ka maaranay marka sidoo kale haddii aad shaqo raadis tahay waxaa laga baahan yahay CV-gaada inuu ahaado CV ka turjumaya shaqada aad codsanaysid marka that's what I'm going to summarize taas ay ku soo khulaasanaya aad ma santiin haddii aad channel ku cusub tahay video-ha like inoo saar follow da sidoo kale labada asxaabta kale oo shaqo raadinta adoo kale ama sidoo kale uu faa'iiday walaalaha kale ee daneynaya inay shaqooyin codsadaan laakiin si aysan aqaan qaabka u wanaagsan ee shaqo ku codsadaan ayuu isticmaalaya CV updated lana jaan qaadaya shaqada ay raadinayaan. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.